معالي الشيخ سعادة شيخ محمد عمر الديرر مفتي البلاد، فضيلة الشيخ وعلم على رأسه نار ومبانا تعريف runtii waxaan rabnaa waa sekreteerka xisbiga mucaaradka mooshinka igu keenay marka waa inaan isa ka soo duldhaco. ilaahay ha barakeeyo sheekhna, ilaahay noo barakeeyo isagii cilmigiisa iyo faa'iidada ummadda u galay kama qarsoona maaragtay laydkaa baxaya isagaa ka iftiin badan. ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo raadkii iyo khayrkii insha allah ummadda u hormariyey ilaahay subxaana wa tacaala fi miisaani xasanaati. waxaan rabnaa marka sheekha si ay dadka ugu daydaan inuu in yar oo kooban wixii saameeyey sabab u ahaa dacwadan in uu ma aragtay uu ka dhigto inay u noqoto mustaqbal, ay u noqoto hadaf, in uu iyada uu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsuqo. waxaan rabnaa in yar oo kooban inuu naga siiyo halkuu ka bilaabay waxyaabihii saameeyey waxyaabihii ku bixiyey inuu dacwada uu ka dhigto yoolka. jazaahu allahu khayran falyatafadal mashkuura. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دكتوركو وهرت مهدسن يهايو سيدن كينو نغا يرا تبعيبات موده اني الشيخه وستير لا وركا ugu dalacay دكتور سعيد oo naga diyaar dabciye waa ku mahadsan yahay. waa isaga laftiisu wuxuu ka baqayaa inaan ku soo jeestoon idhaahdo adiga daadaadu waa imisa horta. رجعت واسك كاين لروشيا وكاق بالله هل بدي أربع حس لها وأروى أنا يو وفتشنت إلهي كسكو أنا ضدك وشيك شيكين أنت بدن لكن سلوغة فايديستو أيام عاو شيكيا مركز وحويان الوالد أبو الله ونحريستو waxa uu ka mid ahaa culimadii Soomaalida ee akhri jiray fiqiga iyo tafsiirka iyo cilmiga naxwaha barbarana uu ka akhri jiray. masaajidkan calimataan markii la dhisayna raggii horeeyay ka bilaabay buu ahaa. xaaskii horeeyay inamadu way ka dhinteen waqti lixdameeyadii meelaha aan ku qiyaasayo ayaa wuxuu habeen ka kacay meelahan siyaarada la yiraahdo. dadkeenu siyaar ay dhagaan Soomaha siyaaro ballaaran oo dadka tolku ay isugu yimaadeen ayuu iska dhex taagay. dadkana sheekh buu markaa u ahaa oo isaga la oranayay ducee. markaa wuxuu waxaan idin sheegayaa culimadii meesha fadhiday iyo dadweynihiiba xaaskii wax wiilala ma laha, kutubtiina wax iga dhaxla ma hayo. waa siday dadku aan ka hayo riwaayada tawaaturka ah isku waafaqeen. marka wanka u horeeya aniga caawa ku yabo haya ducaada caawa idin kale weydiinaya bal inaan kutubta iga dhaxla inay igu ducaysaa ma idinka codsanaya. waxa marka mar qura dadku ay yiraahdeen eray oran jireenoo caamadeen caadi u ah Allah aqbalo ha samaato ha la helo bay oran jireen. wixii ay aad u adkeynayaan ha samaato oo ha la helo. eragii bay ku celceliyeen kadibna uu safray xagga kililka shanaad halkan imika la yiraahdo ama Soomaalida Itoobiya ay degto. laba sheekh oo ay walaalahaayeen oo midda Sheekh Cali Dirir la oranayay midda Sheekh Cabdiraxmaan Dirir ayuu dumarkoodii soo dumaalay. labada sheekhna halkaas ay ku geeriyoodeen. markiiba waxa calool galnay aniga iyo nin kale oo aadan la yiraahdo isku filan aanu nahay. sidii baanu labadayadu ayaanu ku dhalanay. intaa waxa sii raaca oo saameynta u weynaayahay markii dambena wuxuu bilaabay dhowr iyo 10 inuu waxna abti u yahay waxna dhalay waxna adeer u yahay inuu u bilaabo quraanka una dhameeyo. aniguna kuwaasaan ka mid ahaa kutubta yaryarna u dhameeyo. laakiin ugu dambeyntii aniga xokayn u ahaa ku soo haray. raggii way kala shaqo tageen wax dibadda tagay wax meelaha kala galay aniga xokayn u noqday. markaa adeegaa u ahaa waxyaabo badan oo ragga kale uu ka maago ayaan qaban jiray anigu oo uu ka mid yahay mararka qaarkood in raashinka u kariyo ayada oo joogta
wuxuu aad iyo aad u jeclaa inaan diinta barto isagaana ii dhigi jiray qur-aanka ka sako kutubta hoose iyo kutubta dhexeba ilaa 4-5 fan isagaa ii dhigay dardaarankii u dambeeyey wuxuu ahaa markuu sii dhimanayay kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo kitaab hebel oo aan kuu dhigay oo uu ka mid ahaa camriidiga kafraawiga cumdatu saaliga kutubtaasoo akhri ilaahay ha kuu sakhiree diintana ku dadaal dardaarankaasaa ugu dambeeyey saasaanu adduunyada kaga tegey marka midhka halkaa aan kala soo baxay waxa weeye intii ka dambaysay markuu geeriyooday waxaa aada iigu sahlanaa inaan wax akhristo mararka qaarkoodna dadaal da-da yare dhallinyarada kale aan qaarkoodba hadda joogaan aanay bixin jirin baa ilaahay ii fududayn jiray oo awooddayda ka baxsan mararka qaarkood ma garanayo kitaab aan akhristay oo aan ku soo celiyey samaani maayo laakiin dhallinyaradu baan uga jeedaa inay inagu daydaan juhdiga iyo dadaalkaasi waxaan isleeyahay ducadaasaa door weyn ku lahayd marka sheekadan waxaan ku keenay dhallinyaroy ducada waalidku waa wax aan la sahashan karin qiimo aada iyo aada u weyn leh arrin kasta oo kugu adkaada markaad waalidka ku adeecdo laba arrimood buu ilaahay kuu sahlayaa wixii aad doonaysana inaad hesho dadkaagana ilaahay uu kuu sahlo kuwaad adigu dhasho soomaaliduna waxay odhan jireen 3 arrimood midna kaama hadho kuftin jilib kalaam waalid iyo kaba subag haddaad subag cabto dacar baa kugu kiciyo oo kaa hadhi mayso haddaad jilibkaa u kuftana wuu kugu soo kacdoomi doonaa kalaamka waalidkuna duca iyo habaar mid kastuu yahay wuu ku daba socdaa marka casri fitnaa baynu joognaa waalidka ha la adeeco wax weynoo cajaabiyada ba idinka arki doontaan saameyntayda u weyn taasaan u aanaynayaa dee waafajintuna waa iska halkeedoo qofku inuu barnaamij samaysto uu ku howlgalo aad bay muhiim u tahay anuu waqtiyadii aan wax akhrisan jiray ciidaha maan fasax qaadan jirin jumcayaashana maan fasax qaadan jirin muddo 7 sannadood gaadhaysa filimada maan geli jirin sportska maan geli jirin riwaayadahana maan geli jirin arrintaasi markaa waxaa ii sahashay shay 10 sano lagu soo ururin karo 2-3 sano inuu ilaahay waafajiyo is-ammaani mayno laakiin waxaan filayaa dictoorku inuu uga jeedo uun da'yarta inaga dambaysaa inay wax inagaga daydaan ilaahayna ha inaga dhaafo haddaynu xoogaa buubuunina ku darnay way iga dhantay dictor marba waxaan youtube-ka iyo facebook-gaba aan ka arkay barnaamij sports adoo waddada isku dhibagay oo xawli ku socda marka barnaamijkaas waxyaabihii kugu dhaliyey iyo faa'iidadii aad heshay iyo reactionka dadkaan u baahanay jazaaka allahu khayr waad ku mahadsan tahay su-aasha adi yar fududaysay jazaaka allahu khayran horta arrinkaasi si yaro kadiis u dhacay anigoo meel iska lugaynaya ayaa nin kabarad sitaba igu soo baxay oo dhallinyaradana watan kabaradda lagu saliday moogta isla kaysa wariyey hal min suura iyo wax un bay had iyo jeer ku qabtaan gaadhigaa meel dhigtay waa iska lugaynayay wuu isoo helay waa igu qabtay markii dambena microfoonka ayuu si yaroo dhaqso ah iigu dhoweeyey kelmad yaro jeediyay oo dadkii dee aan ku dhiiri gelinaya inaanay si xaydh fadhida aanay u noqonin inay yaro dhaqdhaqaaqaan yaro dhiiriye 2 arrimood unbaa markaa igaga soo noqday midi waxa weeyaan sheekhu waxay yidhaahdeen war ma wuxuu fududeeyuu fasaxay barnaamijkii kaalay ila luge kaalay ila lugeedu show waa barnaamij iga horreeyey buu ahaayo dumarka hargeysa qaar ka mid a ayaa show ku yaro baaqay oo waddooyinkay show lugeeyaan wax kaloo kusii hoos jira garan maaye kaalay ila lugee barnaamijkii la odhan jiray kii baaba sheekhu fasaxay bay idhahdeen qolo kalena waxay idhahaan oo sheekhiisa ka youtuber buu noqdee markaad youtube-ka isku xayeysiiyaan ayaanu noqday marka taasina kolley sidaasay ahayd laakiin barnaamijkaa iska kadiska ah ayuunbuu runtii ahaa jazaaka allahu khayr fadiilat sheekh